dhalinyaro soo dhawaada waa Maxamuud cashka waxaynu ku arkaynaa 10kan animation oo saaran eriga koowaad stumble across waa phrasal verb waxay isku macno yihiin come across waa inay wax ka soo horbaxaan by chance saala qaanadaada iska dhaxmareysay sawir aad waa horgashay ba ka soo horbax wadada heysay hebel ba ka soo horbax jiiraad goynaysay dukaan ba ka soo horbax dhamaantood ayaa la yiraahdaa stumble across ama book baad akhrineysay a great idea iyo fikrad fiican baa ka soo horbaxday taasna waa stumble across erig labaad wild boar waa doofaarka laba nooca doofaarna dadku la dhaqda oo waa la qasho hilibkiisa waa la cunaa kulli inagu ma cuno gaalada cunta doofaarkaas waxaa la yiraahdaa pig doofaar kale waxaa jira duurka ku jiro oo yacni duur joog ah kaas baa la yiraahdaa wild boar Soomaalida waxay u taqaanaa doofaar jilbi waa midka beeraha gale dadka dhib ereyga saddexaad windshield waxaa la yiraahdaa muraayada hore ee gaariga muraayadiisa hore taa ayaa la yiraahdaa windshield yes ereyga afraad aerial waa la xiriirta hawada related to air for example haddaan ku dhaho drone-kii caasimada ay sawir aerial ka qaaday the drone took an aerial photo of the city xagga koreynta istaagtay sawir ka qaaday waa yes TV-ga markii la daawanayana aerial ba isagan la isticmaalaa oo signalki TV-ga inoo sax yes satellite ku la xiriira signalku TV-gu saxa ereyga shanaad affliction was something that causes pain wax dadkan dhibaato iyo xanuun ku sabab for example the disease caused great affliction cudurradii waxay keeneen dhibaatooyin fara badan xanuuno fara badan yes hardship fara badan ereyga lixaad aftermath waa natiijo ama cawaaqib xumo inta badan wax xun waa cawaaqib xumo waa yes for example the aftermath of the storm was terrible okay ama hadii kale the aftermath of war can last forever cawaaqibta ka dhalanayso dagaalka waa mid weligeed sii jirayso gaajo abaaro nacayb dhimasho asay abalaan iyo agoonnimo Soomaaliyeed yes aftermath marka waa cawaaqib xumo result xun ereyga toddobaad anarchist waa qof jecel ama qof rabo wadanka inuu noqdo bilaa dawlad bilaa sharci bilaa nidaam kaas ayaa la yiraahdaa anarchist yes ereyga siddeedaad armored tank waa tangi ama gawaarida militariga ay qaadato oo yacni hub iyo wax walba leh yes xabadan uma karta waagi hore ciidamada gorgor uu farmaajo keenay gawaari waxay wadeen armored tank ah ee qofka hadii wax xabad ku dhufto xitaa aanay karayn iyagana qoryo aad u waaweyn baa saaran yes okay ereyga sagaalaad baffling waa wax lagu wareeray way adag tahay inaad fahantid haddaan ku dhaho the math question was baffling su-aashii xisaabta mid lagu wareerayay ahayd mid aad u adag yes ereyga tobanaad u dambeeyo sham waxaa waayo wax fake ah yes yacni waxay u muuqdaan aanan xaqiiqatan ahayn waa fake ayay isku macno yihiin ama fraud for example they sold sham products to tourists dadka dalxiisayaasha waxay ka gadeen alaabo fake marka ereygaas sham waxay isku macno yihiin fake opposite-keedana wuxuu noqonayaa real ama authentic cashka intaas ayuu ka yahay keep learning and have a good day bye bye